madaxweynaha Indonesia oo maamula dalka ugu badan Islaamka Subiano ayaa ku kacsanaya Donald Trump inuu la kulmo Eric Trump dhageyso. haddaba taas maxay ku cadaynaysaa? waxay ku cadaynaysaa in Eric Trump uu yahay ninka labaad ee ugu awood badan leh Mareykanka. xataa JD Vance oo ah madaxweyne ku-xigeenka Eric Trump ka awood badan oo ka saameyn badan hadiiba madaxweynayaashii caalamka ay leeyihiin ma la kulmi karnaa Eric Trump. siday baayisay Reuters oo ah saxaafadda ugu codka dheer ee galbeedka qaaradda Ameerika ayaa waxay sheegaysaa inay Donald Trump iyo Somaliland ay ka wada hadleen arrimo ganacsi. haddaba markii wada sheekaysteen madaxweynaha Somaliland iyo Eric Trump ee uu madaxweyne Erdogan sheegay inay Somaliland haysato ilaahay hadiyadu siiyay shay caalamka dhan u baahan yahay oo u baahi qabo very strategic location Baabilmandab oo ay Somaliland fadhido xuduunta biyaha caalamka. Baabilmandab albaabka ku kulmaan biyaha reer galbeedka iyo Middle East-ga the checkpoint. Eric Trump was shocked. He was like, I can't believe this. wuxuu ku leeyahay ma sugi karo intaan la kulmayo bilyaneeradii Mareykanka iyo madaxdii caalamka. waxaan uga sheekayn doonaa koobta qiimaha ay leedahay si ay ugu samaysaan maalgashi. waanan aaminsan inay jeclaysan doonaan. fiidiyowga fadlan sheegare Somaliland oo dhan gaarsii waad mahadsantahay.